kanaalka sahanka dunida subscribe saar oo ku soo biir. Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Daawadayaal guud ahaan muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha qadiimiga ah ee dalka Iiraan. Iiraan waagii hore waxaa loo yaqiini jiray Persia, waxayna ka mid tahay wadamada dhaca galbeedka qaaradda Aasiya. Waxayna xuduud la leedahay waqooyi galbeed wadamada Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Ruushia, dhanka waqooyi bari ee Turkmenistan, dhinaca bariga Afghanistan iyo Pakistan, iyo dhanka koonfureed ee gacanka Persia iyo Oman. Waxayna ka timaadaa dhinaca galbeed Turkiga iyo Ciraaq. Isku soo duub dhulbaraha u dhaxeeya latitude 24 degree iyo 40 degree xagga waqooyi iyo meelaha dhaadheer 44 degree iyo 64 degree oo ah xagga bari, iyo guud ahaan bedka dhulka wuxuu gaarayaa 1,468,195 oo kiiloomitir oo laba jibaaran ka badan 78.4 milyan oo qof ayaa ku nool. Waxaana loo arkaa inay tahay mid ka mid ah goobaha ugu caansan. Iiraan waxaa ku jira goobo fara badan oo qadiimi ah oo soo jireen ahaa waqtiyadii hore. Sababtanina waxay tahay inay hoy u tahay ilbaxooyinkii ugu da'da weynaa ee ka muuqday dunida, loona yaqaanay Persia. Waxaana ka mid ah astaamaha taariikheed ee ugu caansan qulqulka Calawiyiinta. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah taalooyinka ugu nashqada quruxda badan ee magaalada Iiraan ee Hamadan. Waxaana la dhisay dhammaadkii xukunkii Seljuk ee qarnigii 6aad Hijriga. Mid ka mid ah qoysaskii Calawiyiinta ayaa rabay inuu u noqdo masaajid waqtigaas, laakiin wuxuu isu rogay qabuuro, kaasoo loogu talagalay reerka Calawiyiinta. Kadib markii qabuuro loo bedelay reerka Shamsu Tabrizi, waa qabuuro ku yaalo dalka Iiraan, waana mid ka mid ah qabuuraha ugu caansan uguna dalxiiska badan. Waana meel ay soo booqdaan malaayiin qof. Munaaradani hortiina ka muuqato waxay ku taalaa dusha sare ee magaalada Damawtid, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah taalooyinka ugu muhiimsan ee weli jira ilaa iyo qarnigii 4aad.